asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asxaabta youtube channelka ku xiran waan idin salaamay salaan kadib ugu horeyn waxaan idin raaligelinayaa labadii bil ugu dambeeyay 30 Oktoobar bishii tobanaad inay tahay umaleynaya wallaahi wax aan filinayna igu dhacay aabe ayaa ahay magaceedii yacni meeshan waa kusoo qoray sida aragtaan qoraalka aabe dad been soo sheegeen macnaha $40,000 wanisbad ka helay been liiga sheegay yani wanisbad maan isticmaali jirin lacagaha karaabta ayaan sarfi jiray markaasi iyo hooyadee way isfureen ana hooyadee la joogi jiray ma fahmino hooyadee la joogi jiray marka dada been soo sheegeen sidaas kadibna ciidan isoo jaartay asoo su'aalna waxna i weydiinan ayuu meel dhaqan celin ay igu tuuran fahanti labadii bil ugu dambeysay wallahi lugahan ka xirnaa mobile dhan waa lii diiday xitaa hooyadee oo soo waxtay waa lii diiday dhaqan celinta xitaa waxyaalo badan ayaa meesha kusoo arkay xitaa waqti la gelin ma fahmino soo dhaweyn xataa yani markaa cusubta lagu soo dhaweynaa wallahi 3 qof lagu tumaa lacagaha liiga tumaa ma fahamteen marka asxaabta dhibaato badan la soo kulmay igaraal noqda dad badan lacag soo dirsaday waa arkay sidaas taayna waa u dir waayo awoodi waayay mar walba waan iga soo murgaayay murugta i haysi waxay ahayd hooyadan iyo xaaskeyga iyo idinka oo aan awood u yeelan waayay inaahe niila yani inaahe nii adeego ma fahamteen idinkaas zaaid nigiisii fikra alxamdulilah maanta haddaan noolahay haddaa dhimo lahaa ayaa ka darnaa laheyd marka alxamdulilah hadda marka insha allah lacagihiina dhan waa soo celcelin doonaa evc plus ku celin doonaa wixii karaabto iisoo dirsaday oo evc plus rabi evc plus kooda u diraa wixii karaabto iisoo dirsadayna yacni wixii evc plus iisoo dirsaday lacag karaabto rabina lacagta evc pluska u diraa hadda anigaaba maanta nuurka arko wallaahi meel mugdi ayaan ku jiray lugaha ayaa iga xirnaa silsida iga xirneed mushusha kabala'aana gadi jiray ya anuu balood isticmaali jiray meesha balooda lagu targal laakiin aabe wuxuu dhahay caasi waalideyn waa been oo liiga sheegay ma fahantay laakiin dhib male adduunkan wax la arkayna male imtixaan koley qof walba muslim imtixaan wuu maraa imtixaankaasna ayaa igu dhacay marka walaalayaal hadda war markaan sii gaaray insha allah waxaan arkay 13,000 oo dalab ii taalay marka dhammaantiina lacagaha waan ii soo celcelinaa insha allah idinkana ii sabra walaalayaal intaa lacagta gudaha waan ii soo celinayo marka iga raali noqda hadiiba mar oo nolosha igu jirtaba alxamdulilah uu soo badbaaday marka sidaasaan ii sheegayay haddana howshaa bilaabi doonaa lacagahana waa soo celcelin doonaa ii soo celcelin doonaa insha allah marka aada u xumaateen waa ogahay yacni qofka wuxuu isdhahay qofka intuu noqday lacagtii oo kula boodi ayuu isdhayaa ma fahamteen marka iga raali noqda walaalayaal wallaahi dhibaatadan ku jira haddaa ogaa laheedeen ma ahan mid oo qof u dulqaadan karo ma fahamteen dhibaato badan waa soo maray laakiin kulli shayna alxamdulilah haddana warka manigu sii badanayay lacagaha ayaa nii soo dirdiri doonaa insha allah waan nii soo celeli doonaa qof walba soo dirsaday